kulankani oo ujeedadiisu ahayd mid lagu sii xoojinayo sugidda amniga iyo geed socodka doorashooyinka ee fowda inagu soo haya ayaa waxaa kulankani ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee saraakiisha hay'adaha amniga ee ka howlgala gobolka Erar. Furitaanka kulankana waxaa si wadajir ah uga hadlay ahmiyadda kulankani gaashaanle sare Cabdiraxmaan Axmed Nuur, taliyaha brigade-ka labaad ee ciidanka xoogga gaarka iyo gaashaanle dhexe Mukhtaar Xuseen Cadde, komishineerka komishanka booliska gobolka Erar. Saraakiishani ayaa ciidanka ku booriyay inay si habsami leh u gutaan xilka iyo waajibaadka saaran ayna sii dardargeliyaan qooyinka ay hore ugu hayeen shacabkooga. xilli doorashaan ku jirnaa doorashadii inuu ogtiin toddobaad ka hadhay marka sargaal walba halkan fadhiyo iyo askari walba waxa looga baahan yahay in goobta uu ku qoran yahay ama aaga uu shaqada ka leeyahay uu ka soo baxo cid walbana aaga ay joogto iyadoo ma laga xisaabtami marka taa waa inaan ugu diyaar garowno kale ciidanka dariiskun baa u kala bedelan hal ciidan baatiin hal ciidan oo dharku kala bedbedelanaya shaqadu baynu nahay taana waa inaad ogaataan shaqadana waa inaynu ammaanka sugno aynu adkayno inagu ammaanka doorashada iyo ammaanka kale ee deegaankaba waa inaynu mar walba si wada jira iyagoo gacmaha haysanna nidaam walba laga wada hortago diyaar loo ahaado marka shirkeenu saaka wuxuu ku saabsan yahay sidii loo adkeyn lahaa ciidamada la isugu dhafi lahaa shaqo qaybtii doorashada hal command post sidaba hadii nin walba mas'uulkiisa la soo hadlo meeshuu joogo oo mas'uulkiisa la soo hadlo warbixinta xilli dambe soo gaaraysa meeshii loogu talagalay ama in laga jawaabo way adkaanaysa marka waa inaynu hal cid samayno aynu dhahno mataqaanaa hadii maleeshiyaan iyo hadii asluub iyo hadii boolis iyo hadii liib boolisba halka cid waa in wixii doorashada intay dhamaanayso wixii dhibaato mar walba halkay marayso waa in halka telefoon la soo siiyo oo sida la isku xidhno si durba looga jawaabo maadaama waqti yar oo kooban inaga xigay hadda dhowr bari baa inaga xigtay doorashadii marka amniga doorashada gobolkeena iyo deegaankeena si uu nabadgelyo uga dhacdo sano falankeedu qaban lahayn ayaa loo baahan yahay ana shirkeena maanta taas ku saabsan yahay gobolkeena waa aad u farabadan yahay goob doorashada ka dhacay degmada fiiqa kale had maqlaysan 88 inay tahay marka waxa loo baahan yahay dhammaan intaas si nabadgelyo ugu dhac lahayd awal hore si nabadgelyo inoogu hayd haddana si nabadgelyo inoogu dhac lahayd inaan ka shaqeyno wax kasta oo jooga waa nabadgelyo looma dhigto waxa la nabad waxba kuma yeeshee colaad u tookay marka wixii nabad inoo waa nabad inagu wax kasta iman kara inuu tookayna loo baahan yahay marka qof walba shaqadii uu qaban jiray in awal hore bahaynay waajibaadkeen haynu gudanayna inaan xilkasnimo iyo lama laab ku daro oo qof walba shaqadu qaban jiray 10 la mid ah oo kale kaliya inuu qabto inuu ku xisaabtamo haddii ay nabadgelyo noogu dhacdo gobolkeena uga dhacdo nabadgelyo si nabadgelyo doorashada noogu dhamaato waxay ka dhigan tahay deegaanka si nabadgelyo uga dhacday haddii in yar oo khalkhal gobolkeena ka timaadana waxay ka dhigan tahay deegaanka khalkhal baa ka yimid marka mid kale waxa loo baahan yahay si ku dayasho mudan oo la dhaho tusaale loo soo qaato inaan uga hawlgalno gobolkeena qaabkan awal hore wada shaqeynay ciidamada isku kala bedelanay ee gobolka ku sugan nooc kasta ay wada shaqeynayeen mid ahaanshaha ahayd tii inagoo mid ahaansho u abuurayna inaan ku sii shaqeyno dhanka kale saraakiisha kala duwan ee hay'adaha amniga ee ka soo qayb galay shirkani ayaa si buuxda u ballan qaaday sugidda amniga ee guud ahaanba gobolka kala ciidankani waa ciidankii maaragtay kolka horeba gobolka iyo deegaankaba amnigiisa sugayay u taagnaan weeyaan intaynan waa intii shaqada haysay macnaha waxa weeyaan guulaha soo heynaysa wax walba qabanaysa meel walba taagneed weeyaan iyadoo sidan ka adag oo dhaxan iyo buur iyo qoraf iyo wax walba taagan yahay ciidanku socdeen ay taagnaan jireen haddana waxa weeyaan waa u diyaar garow macnaha doorashada inaynu si nabadgelyo ay noogu dhici lahayd inaynu u diyaar garowno wuxuu ku saabsan yahay adkeynta iyo u diyaar garowga doorashada ka dhacaysa maxaan ku dhahaa deegaanka iyo dalkaba gaar ahaan annagu waxa weeye maanta ballan qaadaynaa aan u falanqaynay annagoo iskaashanayna shacabkana maxaan ku dhahaa si fiican oo feejigan aan ugu adeegayno shaqadii hore aanu haynay inaan sii adkeynayno